dadweyne aad u fara badan oo ay ka dhex muuqdeen ardada dugsiyada magaalada Galkacyo ayaa soo buuxdaafiyay wadooyinka saaka uu marayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helinayay madaxweynaha Galmudug Axmed Geelle Xaaf. waxaan aad ugu faraxsanahay anoo da'dan jira oo hooya inaan waligay arkin madaxweyne Soomaaliya ee wadankayga sharafta leh Soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan si live u arkay madaxweyneyga waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo dhawow Galkacyo Galmudug madaxweyne waa kugu haweenay waxaan rabnaa inaad noo samaysid madaxweyne waxaan ka rabnaa inaad nabadda ka shaqaysid Galkacyo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dadweyne badan kula hadlay madaxtooyada Galmudug ee Galkacyo waxaana uu sheegay in socdaalkiisa Galkacyo uu yahay mid ku aadan dib u heshiisiinta magaaladan isagoo dadka reer Galkacyana ka codsaday inay nabadda gacan siiyaan. waxaan runtii aad kaga mahadcelinayaa sida walaaltinimada leh ee qalbiga furan oo diiran oo sharafta weyn aad ku soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga waxay ka turjumaysaa sidaad u jeceshiin martidiinna iyo madaxdiinna. safarkan dheer aan soo galay oo aan maanta aan ku joogo magaalada Galkacyo magacan u bixiyay waa maqashay Soomaaliya waxa weeye waa safarkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay qof walba oo halkan jooga magaaladan Galkacyo iyo qof walba Soomaaliyeed dhageysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan nabadoono waxaan u nimid halkan dib u heshiisiin taasoo aan ballan qaaday maalintii la ii doortay aan ballan qaaday gacan ma igu siinaysaan magaalada inay noqoto magaalo nabada oo horumar leh oo mustaqbal fiican leh. madaxweynaha Galmudug Axmed Geelle Xaaf ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya soo dhaweyn kadib waxa uu ka codsaday in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay door fiican ku yeelato horumarinta deegaanada Galmudug. Galmudug maantay nasiib waxay u yeeshay inay maaragtay aad u soo dhaweyso madaxweynahoodii dawladda federaalka iyo wafdiga la socda dhammaantood maamulka iyo dadka aad maaragtay banaanka maanta u soo baxay oo halkan jooga waan salaamaynaa madaxweynaha waad soo dhaweyseen wax allaaliyo wixii madaxweynaha aan uga baahnaana waa u dhiibaynaa maantay. marka ugu horreysa waxaan rabnaa inuu noo furo oo noo dhiso jidkii Hobyo iyo Galkacyo. waxaan rabnaa in loo dhiso xabsigii aan dadka edabta daran iyo mujrimiinta aan isaga xiriirnay. waxaan rabnaa wax badan oo kale in maaragtay dawladda federaalka ay loo qabato. intaa kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada Galmudug ee Galkacyo waxa uu kulan kula yeeshay xildhibaano, senataro iyo mas'uuliyiinta maamulka Galmudug kuwaasoo madaxweynuhu ka dhageystay codsigooda ku aadanaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay door fiican ku yeelato dib u heshiisiinta magaaladan iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhagax dhigay dhismaha xabsi ay yeelatay Galmudug xarinta dib u heshiisiinta iyo wadada isku xirta Hobyo iyo Galkacyo. Ali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Galkacyo.